عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بشواشان لبدا كون إيو كوبي لباتنكا ومالين جمعة waxaanu dib ugu noqonaynaa soo qaadanaynaa arrinta ka yaabisay dadka oo fajacayso ku noqotay guud ahaan beesha ama beelaha dega ay ka mid yihiin beesha Sugeer walaal oo hogaaminayo Suldaan Xasan Suldaan Cabdullaahi Suldaan Cabdiraxmaan iyo dhammaan guud ahaan qaybaha kala duwan ee bahda dhaqanka ee ka soo jeeda qoyskaasi taasoo ay markaasi ka warrameen faragelin bariyahaba ilaa 16kii 2016 ka soo bilaabanta oo markaasi kaga imanaysa hoggaanka dalka gaar ahaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo noqotay mar labaadna inay dhacdo waqtigan aynu ku jirno taasoo markaasi fajac gelisay ummadda iyadoo waliba intii aanay halkan ka hadal ama aanay soo bandhigin hadalkoodan ay markaa door bideen horta inay la kulmaan ama cidii markaasi loo qaban qaabiyay gudida ay noqoto inay madaxweynaha kala hadlaan arrintan taasoo suurtagali weeday maadaama ay taasi u suurtagali weeday noqotay inay warbaahinta la wadaagaan arrimahan fajaca ku abuuray guud ahaan ee laga yaabay taasoo iyadana laga filayo guud ahaan beesha maadaama madaxweynuhu sida inta badan lagu socdo ama qaabka qabyaaladda dalka ka jirta ee hanaanka xisbiyadu ay ku shaqeeyaan ay tahay xilligii guud ahaan sanadka soo socda loo dareeri lahaa doorashada taasoo aad moodo inaan diyaar u ahayn yani taageeradii iyo arrimihii markaasi uu ka filayay guud ahaan beeshaasi Sugeer awal oo hogaaminaya suldaanku oo horena uu sheegay in dalka oo dhan ay u soo wadamareen si markaasi taageero loogu heli lahaa imikana ay isweydiinayaan oo fajac ku noqotay waxyaabaha geliyay in gaadiidkii iyo xubnihii ka midka ahaa kabinetka ama golaha wasiirada ee uu xukumo madaxweynuhu ay noqdeen qaar markaasi hawshaasi markii soo dhaweeyay ka bacdi ay xaflad qadaw la isugu yimid kaga dhawaaqaan arrin looma fadhiya waxaana ka mid ahaa hadaladii suldaanka guud iyo xubnaha markaasi uu helinayay ee salaadiinta iyo waxgaradka siyaasiyiinta kala duwan ka soo qayb gashay hadaladoodii qayb ka mid ah ku soo koobno halkan baada dhageysi wanaagsan halkan maanta ay bishu tahay 4 bishii November 2021 waxa halkan maanta aanu ku soo bandhigaynaa maadaama shacabweynaha reer Soomaaliland gudaha dibadba iyo dhammaanba ummadda af Soomaaliga ku hadasho dhani ay warbixin naga sugayeen iyo xaaladii ku saabsanayd shirkeyga jaraa'id waxa uu ku saabsan yahay xaaladii ku saabsanayd faragelinta sardaladda guud ee beelweynta Sugeer awal ee kala degan dhammaanba mandaqada iyo daafaha dunida warbixintii farafareyntii iyo faragelintii iyo foolxumadii lagula kacay arrintaasi ayaa maanta shirka jaraa'id ee aan isugu kiyeernay bahda saxaafadda oo dhan si aad ummadda Soomaali oo dhan uga gaarsiisaan ayaaba ay daaray oo aan u fadhinaa waayahay intaa ka bacdi maanta ka hor lagama hadal oo bahweynta salaadiinta iyo odayaasha iyo mujaahidiinta iyo guddigii loo xil saaray arrintani maanta ka hor arrintaa may soo bandhigin oo waxa ishraar baa loo fadhiyay tan iyo maalintii ay dhacday arrintaasi oo ku beegnayd maalintii soo dhaweyntii ugaaskii beesha Ciise lagu soo dhaweynayay Hargeysa oo marti u ahaa xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee galwadeenka uu ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waftigaasi markii ay sidii loo soo dhaweeyay dhammaanba beesha habar awal qalbi furan bay ku soo dhaweynayaan halkaas soo dhaweyntii xuduudda laga hortagay si fiican bay u dhacday laakiin masiibadu waxay ka dhacday markii qadadii la isugu yimid ayaa halka fal aan loo fadhiyin iyo waxa loo fadhiyin ay ku talaabsatay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo halkaasi ay ka dhacday arrintani taasi shacbiga Soomaaliland iyo Soomaali maxamedba hal naaskeed ninka gaaraya caruur iyo ciroolaba aad iyo aad baa looga dabqaday marka ugu horeysa waxaan u mahad celinaynaa oo mahad ilaahay baa iska leeyahay mahad ballaaran oo kaliya laaba oo ka soo go'day shucuurtayada oo ka soo go'day qalbiyadayada aanu u celinaynaa intii ka fal celisay ee ka dabqatay ee ka dhiidhiday ee maanta arrintaasi tiri no waa lama taabtaan intii tiri baan u mahad celinaynaa falkaasi markii uu dhacay anigu waxaan ku maqnaa dalka Itoobiya oo arrin khilaafaad oo tago qolaal ku heshiisaynay aniga salaadiinta kiilka shanaad ee dowladda deegaanka Soomaalida qaar ka mid ah salaadiinta isaaqba halka u baxnay dirdhaba anagoo dirdhaba joognaa qabti dhacday okay waa soo galay wadankii waxa isku yimid ergooyin aad u fara badan baa isku yimid oo cadadkooda aan la qiyaasi karin oo ka soo baxay Burco oo ka soo baxay gobolka Togdheer
إلا ما بيسقى كيمد ماشي دونا كيمد ساحل كيمد هرجيسة كيمد قبل كقبل كيمد دولة ديجاك الصومالية كيمد أو إنتي كو أبتكسر يسي بعض نقن كان بيش هبارة والله إسكت يمد هل كان واحد لقى ساري جودي سيدة تروح بنوضة بالله لقى ساري شن توصل سلطان أو سلادين من بري إلا من قلبه ده لقى ساري وهل كان فرديه وحكلوا الله ساري oo lagu daray marka odayaal waaweyn oo muxtarim oo qarankana haybad ku leh guulahan mantiqadana haybad ku leh Soomaalidana haybad ku leh oo foolaadkii habara walaba lagu daray oo ka mid yahay siyaasiga ruucadaaga ah Cabdilaahi Gaxluug oo fadhiyo goobtan oo ayaa lagu daray gudiga waxa kale oo lagu daray mujaahidka weyn Ibraahim Cabdilaahi Xuseen Dhagaweyna lagu daray oo hal doorka umada ku jira Soomaali Maxamed waxa lagu daray mujaahid Faysal Madoobe oo isaguna door weyn ku leh saameyn badan ku leh mantiqada oo wax garadka ka mid ah halka go'aankoodii iyo arrimahoodii waa loo fadhiyay kiiskaasi baaritaan iyo xogogaal u noqosho iyo baaris guud oo la baaray oo awal u fariistay oo guddigii loo xilsaaray u fariisteen waxa soo baxday arrintaasi inay xukuumadda uu garwadeega ka yahay madaxweyne Muuse Bixi Cabdi Muuse ayay dhabtiisa fadhidaa oo arrintaasi ay fadhidaa Muuse waa ninkii aanu halkaa inta laga baxay albeelaha Somaliland ugu dawlad tagnay codka maanta kursiga uu ku fadhiyo ka yeeli mayno ilaahayna ka muu aqbalin inuu maanta koofiyadda lagu dul jeexjeexo shacbiga Soomaaliyeed ka yeeli maayaan arrintaasi sugaal oo la ka yeeli maayo halkaas insha Allah bismillaah kariim arrinta ay taala farfariintan ma markii ugu horeysay oo bilaabay tan iyo 2016 ayuu soo bilaabay markii ugu horeysay oo uu sanadadaasi soo hujuumay taana falcalinteeda habara ka falcelisay sheekh Shaxaq waa ka falceliyay Soomaaliland waa ka falceliyay waxa weeyaan tiibo hadana maanta jeebka kala soo baxday isagoo muddo hal sano warsantay wax ku kalifayna dayaab bay nagu tahay mid waa yaabkiisa wax yaaba ninkii dhammaay meesha aanu saarnay inuu maanta hadana wixii uu jeebada ku haystay oo hadana dib ula soo kaco oo hadana martaba soo laba kacleeyo wala la yaabay yaabkeedo beelihii Somaliland ee aanu bariyo galbeed ba u baray iyana waa yaabayeen insha Allah bismillaah kariim waxaan leenahay Muusow adiga dhabtaada saarantahay arrintaasi adiga dhabtaada taala xukuumaddaadii baa gashay adiga galay gaadiidkii dawladda بريتولكي دولة تقاليه دولة تكون بحسي أرنتها سهل كاس أيامي تعالى شعبي قالوا العطين الله أرن كاسو حكومة دنا عدي كتشوف كفديني أرن لقف لينا ما هين هل كان بدن بعد فديني سلادين تيو ودياش هل كفديا إرجانو دري إرجادا سوا حين تلواد ولا بنغني وحبا يدين ما هين بينا وحبا ما أنت يدين ما هين مركا واحد ده خاصة بنغطي إذا نعنكو اللي وقت جي انتي اللي وركيدنا اللي كسر عليه وواحد إنه حكومة دارجنا أو مدحونا دارجنا أو دور نسوينا ولا برادقنا لكن هالكا وحبوا يكسر رجال وعي ما دام هالكا يكسر رجال ويدينا ورد ده سلطة حسن كل عمايو دولتنا دومو هاي وسير سوق وعد وحكا قاضيستا أما حلك قاضيستا أما عد كلا قرب إري كاريسا أرد هبر والوي سلطان كجودة السبير أول سلطان حسن سلطان عبد الله سلطان عبد الرحمن إيو سلطان محمود أحمد الشيخ أي لهذين نحر كهرتا وهذا الكهرتا وأنت هوي وحلقة اللي أنا وسطرد السبير أول صوت شرينا صدح بقول السندوت شرتي خرنا ووشريسة دبنا ووشريسة وحوين هذا الكنحر كيس سدا سلطان أنت على سود ويني وقاسك عيسى قلت بعد عي وقاسك عيسى ندم مرحتوي رسول ويني سي hawsha madaxtooyada wadatay ugaas ciisa la soo dhaweynayay sadarada subeer wal iyadoo ugaas ciisa la soo dhaweynayay damage loo geysto baana filin damage gaari karaana ma jiro waa sadarad facweyn waa sadarad soo jireena waxa weeyaan hawshaasina waxay ka socotay waxay ka dhacday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ba waftigana diray wasiirada diray Soomaalidu waxay tiraahdaa reer adooriyo dib looma raaco intii hore odayaashu yiraahdeen iyo salaadiintu ay yiraahdeen kala mid baanahay waxaan sag leeyahay madaxweyne dalka iyo dadka iyo xoolaha iyo badda iyo dhulka iyo cirkaba adiga lagu doorto lagu dhaariyay
salaadiinta madax dhaqameedka subeer awal ee uu ugu horeeyo suldaanka guud iyo salaadiinta kale arintooda adiga waxa lagu dhaariyay inaad dalka iyo dadka iyo ka shaqeyso oo wasiiradaada iyo agaasimayaashaada iyo waxa ku hoos yimaada aad madax ugu tahay laakiin saldadada subeer awal lagu uma dirin muddaanu arrintaa wadwadnay dhan walba waanu rognay xog badan baanu doonnay wax badanna markhaataanu ka ahayn madaxweyne annagoo gacmo geel jira hoos baa loo dhaqaa annagoo leh waanu kala maarin weynay inaanu maanta saxaafadan halkan ku qabanno markii ergadaannu soo diray kaa soo noqotay dadkii waxa garanayay ay kugu soo dhici waayeen dee xabad annaguma sidanoo ciidanku gelin maynee madaxweyne inaanu dadkii aanu sandaladda u sidnay inaanu wuxu sheegno halkay wax marayaan ayay nagu kaliftay adaa nagu kalifay haddaynu ka wada hadli lahayn dee intaasi may timaadeen اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد ugu horeyn salaadiintaadii baanu nahay kuwii ku dhabarja baanu nahay waxa weeyaan arrin meesha subeer awal qabtana maaha waxaan leeyahay suldaan xasan waa suldaankii gudaha subeer awal annagu waxaanu halkan u fadhinaa maadaama aanu nahay ergadii loo xil saaray arrinkaa waxaanu u fadhinaa ilaa saacadda uu hadalkaygu baxayo in doorkii xukuumaddu ay ku lahayd aanu ka sugayno shirarkana aanan u kala furayn ilaa jawaab rasmiya aanu ka helno dadkayagii arrinkaa ka dhiidhiyeyna waxaannu u sheegaynaa in saldanadda subeer awal aynu wada ilaashanayno lama taabtaan tahay suldaan xasan suldaan cabdilaahi suldaan cabdiraxmaanno goob walo uu joogo iyo meel walo uu joogaba uu yahay suldaankeenii dal iyo dibad mii iyo magaalo intaba uu ku matelayo subulaha ilaa saaxil suldaankiisii weeye mana aha suldaan cod ku yimid oo doorteen waa saldanad 300 oo sano ka hor la doortay